إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله، قال ربنا سبحانه في كتابه الكريم: يخلق الله ما يشاء ويختار. إلهي سبحانه وتعالى wuxuu doonaa ayuu abuuraa, wuxuu doonana ilaahay subxaana wa tacaala uu doortaa. ilaahay abuurkiisa iyo doorashadiisuba waxa ay ku dhisan yihiin cilmigiisa iyo xikmaddiisa. wuxuu ilaahay doortay wakhtiyada qaarkood, meelaha qaarkood, dadka qaarkood, acmaasha qaarkeed, aqwaasha iyo hadallada qaarkood. waxaa ka mid a wakhtiyada ilaahay subxaana wa tacaala uu doortay shahru muxaram, waa bil ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa weyni weyn ku leh, ahna bisha koobaad ee sanadka hijriga ah, kana mid a 4 bilood ee ilaahay subxaana wa tacaala uu kitaabkiisa ku sheegay xurmo gaara inay leeyihiin. ina ciddata shuhuuri cinda allahi 12 shahra fi kitaab illah yowma khalaqa asamaawaati waalarda minha 4 xurum dalika addiinu alqayim falaa tadlimuu fiihina anfusakum. 12 bilood ee sanadka 4 xurmo gaara leh ayaa ka mid a. 4ta waxaa inoo fasiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. wuxuu uhi waa 3 isxiga: dilqicda iyo dilxija, muxaram iyo shahru rajab. 4taasi bilood xurmo gaara bay leeyihiin. camalka wanaagsane la sameeyaa waa ka fadli badan yahay camalka bilaha kale la sameeyo. xumaanta la sameeyaana siduu yihi cabdullaahi ibnu cabbaas waa ka weyn tahay, kana foolxun tahay xumaanaha bilaha kale la sameeyo. shahrullahi almuxaram, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, iyadoo bilahoo dhan ba ilaahay uu leeyahay, haddana wuxuu si gaara inoogu sheegay inay tahay bil ilaahay uu leeyahy. oo shahrullahi almuxaram buu yidhi si uu muujiyo fadligeeda iyo karaamada iyo sharafta ay leedahay. faqad rawaa muslimu can abi hurayra ana nabiya calayhi salaatu wasalaam qaal: afdalu siyaami bacda shahri ramadaan shahru llahi almuxaram, ay sowmu shahri llahi almuxaram. soom waxaa u fadli badan soomka ramadaan dabadi, soomka la soomo bisha ilaahay ee la yidhaahdo muxaram. waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi uu inoogu sheegay waxyaabaha ilaahay bishaasi uu ku weyneeyey, uu ku fadilay inay ka mid tahay soomka la soomaa inuu ka fadli badan yahay soomka la soomo bilaha kale. waxaa la odhan karaa bisha tirada u badan rasuulku uu ka soomay soom sunnaa waxa ayd shacbaan. muxaram lama sheegin nebigu inuu saasuu u soomay.
maxay tahay sababtu waxay ku jawaabeen ahlulcilmigu sida nawowi iyo culimo kaleba inay dhici karto in rasuulka calayhi salaatu wasalaam fadliga soomka muxaram loo sheegay fii aakhiri xayaatih noloshiisa gebagabadiisii fii aakhiri cumrih ayuha almuslimuuna cibaad allah bishan ilaahay muxaram maalmaheeda waxaa u fadli badan maalinka la dhahdo yowmu cashuuraa waa maalinka tobnaad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yuhuudoo soomi jirtay markuu weydiiyey maxaad maalinkan u soomaysaan waxay ku jawaabeen hada yowmu saalix wa fii riwaayatin hada yowmun cadiim anja allahu fiihi muusa wa qowmah wa garaqa fircawna wa qowmah maalinkani waa maalin wanaagsan bay yidhaahdeen maalinkani waa maalin weyn oo ilaahay uu badbaadiyey nebi muuse iyo ciddii raacday rabbi uu qarqiyuu halaagay fircoon iyo ciddii kufriga iyo gaalnimada iyo xumaanta uu imaamka ugu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam labadaa sife ee ay maalinka ku sifeeyeen oo hada yowmun saalix hada yowmun cadiim aqarahum calaa dalik arrinkaa ma inkirin oo ma diidin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu ogolaaday ayuha almuslimuuna cibaad allah nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ah khayrka mid cid walba uga dheereeya ugagana dadaal badan yowmu cashuuraa wuu soomay rasuulku calayhi salaatu wasalaam tacdiima lilah wa taqaruba ila allah wa shukra lilahi calaa maa xasala fiih weyneyn ilaahay uu weyneynaya awgeed isagoo allah ugu dhowaanaya isagoo rabbi uga mahadnaqaaya waxa weyne maalinka dhacay waa inuu badbaadiyey nebiyullaahi muusa iyo ciddii rumaysay iyo ilaahay inuu halaagay oo adduunyada uu ka qabtay taaquudkii iyo cadowgii weynaa ee fircoon lo odhan jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam soomka cashuura aad buu ugu dadaali jiray wuxuu uhi cabdullaahi ibnu cabbaas maa ra'aytu nabiya yataxaraa siyaama yowmin fadalahu calaa gayrih ilaa hada alyowm ma arag rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo maalin uu maalmaha kale ka fadilay soomkiisa ugu dadaalaya siduu ugu dadaalay soomka cashuura wa hada shahr yacni shahr ramadaan iyo bishan ramadaan bukhaari baa saxiixiisa ku wariyey waxaa nebigu ugu dadaalayay soomka maalinkan oo soomka maalmaha kale sunnaha uga fadilaayay fadli weynoo uu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa khayrkii wanaagga ayuu la jeclaa talo kastoo wanaagsanna waa siin jiray wuxuu amray inay soomaan yowma cashuuraa qaala cabdullaahi ibnu cabbaas fima rawahu lbukhaari fasaamahu wa amara bisiyaamih nebigu calayhi salaatu wasalaam yowma cashuuraa wuu soomay ummaddiisana wuxuu amray inay soomaan amarkaasina waa amar sunnayn iyo jidayn uu rasuulku uga jeeday ee amar waajibin uu uga jeeday maaha waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa u sheegay isagoo oo dhiiri gelinaya fadliga maalinkan soomkiisu uu leeyahay iyo waxa allaha kariimka lagaga helaayo qaala calayhi salaatu wasalaam siyaamu yowmi cashuuraa axtasibu cala allah inii axtasibu cala allah an yukafira asana alatii qablahu rawaahu muslim soomka maalinka cashuura waxaan ilaahay kaga rajaynayaa inuu ilaahay ku dhaafo ama soomka maalinkaasi inuu dhaafo oo ilaahay inuu dhaafo sabab u noqdo sanadkii tegay wixii addoonku uu sameeyey axtasib bimacnaa arju calaana waa ka dambaysiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam macnu waxa weeye ilaahay baa ii ballan qaaday arrinka noocaasi ah walihaada inaan gaadhoon helo ummaddayda cidda ka mid ee maalinkaas soomtaana ay fadligaasi helaan iyo dembi dhaafka mar hadduu ilaahay ballan qaaday rajo weyn maan ka qabaa weliba wuxuu rasuulku tilmaamay ballanqaadka rabbaaniga ee allaha kariimkii uu ballan qaaday maalinka soomkiisa inuu ku dhaafo sanadkii tegay dembigiisa inuu yahay mid mu'akad oo ilaahay u adkeeyey walihaada buu isticmaalay axtasibu cala allah oo aanu odhan axtasibu min allah waa wax ilaahay subxaana wa tacaala uu isa saaray oo si adag uu u ballan qaaday weeyaan macnuhu
أيها المسلمون عباد الله دنبية الغدافة صوم كيوم عاشوراء والصغائرته دنبية واوين دافستود التوبة كان بوباهنتاي عبادات باتشير الصوم كيوم عاشوراء كفضل بدن سيدا صلاة الشنطة هي جمعها هي عمرها ورسولك عليه الصلاة والسلام الشاقي in lagu dhaafo dambiyada yar yar waliba taas oo shardi ah u tahay qofku dambiyada waaweyn inuu ka fogaado marka shaydaanku uu kugu oranin wax walba iska sameey sanadka oo dhan dabeetana yawm aashura un soon waxa dambi sameysay oo dhan baa laga dhaafi doonaa kabiira iyo sagiiraba waxaan leenahay adoomaha ilaahay wacdiga iyo ballanqaadka ilaahay aanu idin dagin oo shaydaanku isagoo idin hadiimeed la doonaya dhibaatayn aanu si kale idin ku fasirin khayrka rasuulku hormoodkiyo tusaale inoogu ahaa inagu dhiirigeliyay inoogu baaqay inuu ku dadaalo isla markaana dambiye waxaynu isku ognahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu uga toobad keeno inagoo rajaynayna ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu inoo dhaafo أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله حق حمده وله الشكر على نعمه ومننه وآلائه ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها المسلمون عباد الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحين الشيء صومك عاشوراء إلهي الضومين وقدم بدافعين شيء كما تشير الدم بداف دمانتين بين وباهناي انت الدم بي خلط بينك دعايه الله ان ابو ريح قال كينو ابا يري يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم هري هبين با دوما هيغو واد غفيسان ان الدم بيدو دوان دافا لي ماده صابان يدين كو دم بدافو وان يدين دم بدافي دون ابو الله سبحانه وتعالى اينو كددالو ومن اسباب المغفره wuxuu rasuulku sidaas oo kale inagu dhiirigeliyay inaynu soonno maalinka sagaalaad ee ka horeeya waa maanta oo jumcaha waa yawm taasi sanadkan 1442 bari oo sabtiyana waa yawm aashura qofkii maanta soomay talada nabiga calayhi salaatu wasalaam waa qaatay markii nabiga lagu yiri innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wa an-nasara ومال يهود يا كريستان وينيان وعرف فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع سنة كصوص على مركز لقارو وحن صومي دونا مالك السقالات ابن عباس وحوري يعني مع العاشر وحود شيدا مالك السقالات أيان صوم كي مالك التمنات قدر الدونا إما صوم كي مالك التمنات بنكتجي دونا يو كمالك السقالات بنكو بدل الدونا لابد هو الصوم الدوناوي وعلماء بدأ صابتوا هنا تاي وانا سي حديث كظاهر كيس وتصير هي السؤال النبي وكجوابه سو النبي عليه الصلاه والسلام يهود خلافه وقد وناده ونبي محمد وحي نوغو باقي انه نجديي ان نخالف اليهود والنصارى يهود والنصارى بخلافهم وحد ابن عباس فلم ياتي العام المقبل حتى توفي رسول الله رواه مسلم سنه كيس السعوديه لما بقارين باهورتيبو رسولك غيريودي وفي ذلك عبره يا عباد الله arrintaana wax lagu cibro qaata ayaa ku sugan oo qofku inaanu ogeyn goorta geeridu iman doonto waajibkuna waxay taas inay sabab ugu noqoto wixii wanaaga waqtiga u horeeyay uu suurta galay inuu sameeyo oo dib u dhigista uu iska ilaaliyo iyo ku xisaabtanka uu ku xisaabtamayo inuu sameyn doono waqti aanu garanahayn inuu gaari doono wixii khalad iyo dambi ku jirana adoonku inuu Ilaahay uga toobad keeno marka u horeysa arintaasi ay u suurtoodo oo aanu toobadkeen ka dib u dhigin oo aanu la sugin waqti aanu garanahayn inuu gaari doonaba ayuha almuslimuuna cibaadallah qofkii maanta oo jumca soomay bari oo yawm aashuraana ha ku daro laba sababood ugood sababta koowaad waxay tahay rasuulku waa diiday jumca soom in lagu gooni yeelo sababta labaadna waxay tahay رسولك عليه الصلاة والسلام سي يهود مسلم كوجد ونادو وحط المامي مالك السقالات هي مالك الطمنات إن وضع الصوم قف كيان ما أنتوا جمعة صومين بريو يوم عاشوراء يوم مقصود كي ويناي الصوم كيدو يانو دافن
axaddana ha ku daro si mukhaalafadii ay u xaasisho oo yuhuud uga duwanaado sidaasoo kale si uu uga badbaado maalinka sabtida inuu soom ku gooni yeelo oo iyadana khilaaf badani uu ku jiro qofka sabtida oo qura soomana la odhan maayo waa dambaabta soomkaagu ansixi maayona la odhan maayo laakiin sida aynu sheegayna waa sida afdalka cibaad allah inuu addoonku sabtida aanu soom ku gooni yeelin jumca inaanu ku gooni yeelin labadan maalmood inuu wada soomo maalinka 9 iyo 10 haddaanu maalinka 9aad soominna maalinka 11 iyo maalinka 10 inuu ku daro maalinka 11 ilaahayna subxaana watacaala hayna waafajiyo intaa waxaan ku darayaa cibaad allah caalamkan maanta aynu ku noolnahay dagaallo badan baa ka socda dagaalkii hubka la isu qaadan jiray ciidamada la isku weerari jiray maanta uu soo yaraanaya siyaabo kale loo dagaalamaa ummadahana loo burburiyaa oo loo baabi'iyaa dagaalka dadka lagu qaado diintooda akhlaaqdooda iyo dhaqankooda aqoontooda caqligooda noloshooda dhaqaalahooda iyo horumarkooda waa dagaalka maanta u daran dagaalkaasina maanta aad buu inoogu socdaa qofkii ogi waa og yahay qofkii kalena ha dareemo noocyada dagaalka u daran maanta lagu dagaalamo ee ummadaha lagu burburiyo waxaa ka mid ah xarb almukhadiraat aw alxarb bilmukhadiraat in ummad lagula dagaalamo in maandooriyaha lagu dhex faafiyo maaha arrin iska caadiya oo dad shaydaan duufsaday oo quri ay manfaca adduunyo ka raadinayaan daroogada maanta waddankaada ugu faafaysa oo sanadkan iyo kii hore farqi weyn u dhaxeeya siday u faaftay marka la eego la isgarab dhigo waa arrin mutacamada waa arrin loo kasay waa arrin loo qasdiyey waa arrin ay ummada dabada ka riixayaan oo dagaalkeeda ay nagu wadaan maxaa markaa inaga inala gudboon ma inaynu isdhiganno oo iyadoo dagaal inagu socdo aynu iska huridno aynu sugno inta layna baabiinayo waa inaynu ku cibro qaadanno ummada inaga inaga horreeyo dagaalkaasi lagu baabiye laakiin markii dambe go-aamo fiican gaadho kasoo kabtay sida jaynaha oo kale dagaalka noocaasi ay nagu socda dawlad iyo dadweyne rag iyo dumar yar yar iyo waaweyn culimo iyo ummadda inteeda kale shacab dhammaanteenba waa inaynu ka hortagno dagaalka noocaasiya dhibaatadiisa ka hortagaynu ka hortagayno iska caabiyana waa inaynu isu kaashano sida ilaahay uu yidhi watacaawanu cala albiri waataqwa walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan meella waa inaynu uga soo wada jeedsano haddii kale maalin kale aynu garan doonaa oo ay taladu faraha ka baxday hadda dad aada u xogogaala oo indheer garada oo aqoon-yahana oo arrimahana si dhow ula socdaa waxay aniga shaksiyan igu yidhaahdeen way dhaaftay xataa waktigii wacyigelinta sida daroogadu waddanka ay ugu faafaysa marka la eego waxay maraysaa xaalad ficil loo baahan yahay iyo camal iyo wax ka qabasho la taaban karo dadka waddanka degan dhammaantood waxaan ugu baaqayaa iyagoo ilaahay ugu dhowaanaya oo ku cibaadaysanaya oo niyadoodu ay tahay inkaaru lmunkar wa taqyiiru wa muxaarabatu lfasaad munkarka inay inkiraan ay bedelaan fasaadka iyo wixii kharibaya dhulkana ay ka hor tagaan oo ay la dagaalamaan dhammaantoodba dagaalka noocaasi iyo heegankiisa ha galaan inkastoo xaafad wada degan oo isu dhowdhowi arrintaa iska kaashadaan dadka xaafadda degan ee dawladda ka mid a aimada masaajidada odayaasha iyo waayeelka dumarka iyo dhalinyarta oo cidda xaafadda ku dhex iibinaysa iyo cidda cabtee dhalinyarta ku dhex faafinaysa iyagu booliska ha u sheegaan ha ugu yeedhaan booliskuna mas-uuliyad baa ka saara dadka diintooda iyo dhaqankooda iyo caqligooda iyo naftooda iyo nabadgelyadoodaba intaabana daroogadu waxbay yeelaysaa iyaguna ilaahay mas-uuliyaddaasi ha kaga baqdaan maanta maalin aan ahayn baa la weydiin doonaa inta hawshaasi la dagaalamaysa ee dadaalka bixinaysa ee madax boolis iyo ciidan balana waa u ducaynayna jazaakum allahu khayran wawafaqakum waxafidakum wasadadakum baynu leenahay ilahay idinka abaalmariyo ha idin waafajiyo oo rabbi subxaana wa tacaala ha idiin gargaaro oo
وإلهي أودي سهيد كو أيد بين لنا هاي أنت كلا لقيا بين مسؤولية ضيعنا وحن لنا هاي برارجا واجب كيد صارن دريمة بين لنا هل هو ذا الشقية ميل هل هو قصو وذا تشيستو ما أنتينو دونا هاي وهاينو كورتي كرنا أودينا وينو أكسونا هاي هداينو قباهدو ودقال كاسي اللي ينو قتشبيو سينو قصو كبنا ويات كانسا إلهينا وحين ويديسينا ينو قرب قلو إلهينا ينو كالما يصنو احرص على ما ينفعك واستعن بالله ربنا ينو تلسارنو أودينا يحيلدينا قرى يعني نسكوها اللينم ربي بينو ويديسينا عدو قدونا يا أمدا دين تيدي يدد نمدي عقلي كذا دل كذا مال كذا إنه بابيو إلهي إنه نقد دفاع اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم إله أذان كاهر جيننا نقعلي ونقد دفاع شرك ودنا إله أذان كام جنجلنا إله ونقد قبا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.